الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، waxaynu ka hadalnay khudbadii jumcihii hore culayska ay leedahay qofku inuu qaado mas'uuliyad guud. waxaanaynu sheegnay axaadiis tiro badan oo masaladaasi ku soo aroortay, waxaana adiladaasi ay tilmaamaysaa qofka mas'uuliyaddaasi qaada ee xilka aan ka soo bixin, xaqeeda iyo waajibkeedana aan gudan, amaba se naftiisiiba ay ku halaagsanto ay ku fitnowdo oo ilaahay subxaana wa tacaala mas-uuliyaddu ay ka fogeyso, usahay qaadashada daarta aakhirana ay ka mashquuliso. qofkaasi inuu yahay qof muruga ay sugayso fi laakhira, wa inahaa khizyun wa nadaamatun yowma alqiyaama, suu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. waa hoog iyo murugo maalinka qiyaame. maanta biidni illaahi subxaana wa tacaala waxaynu tilmaami doonaa axaadiida nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ka waramaysa can xukmi alab alimaara, madaxtinimada noocaasi ah ee halista iyo culayskaa leh, qofku isagu inuu doonto oo uu dalbado uu yidhaahdo madaxa layga dhigo, ama dadka ha weydiisto ha yidhaahda doorta, ama dadka madaxda ha u tago oo ha weydiista mas-uuliyaadka iyo manaasibta ay hayaan inay wax uga dhiibaan. bukhaari iyo muslim waxay wariyeen can cabdiraxmaan ibni samura qaala qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam: ya cabdiraxmaan ibna samura laa tas'al ilimaara. cabdiraxmaan ibnu samurow, imaaro iyo madaxtinimo ha doonanin, amiir ha layga dhigana ha odhanin. fariinta noocaasi ayaa amarkaasi waa mid ku socda qof kasta oo muslima, walaysa khaasan bicabdiraxmaan ibni samura. saxaabigaa mid ku gaarana maaha. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu sababeeye, wuxuu yidhi: fainaka in utiitaha can mas'alatin wukilta ilayha. haddii madaxtinimadii laguu dhiibay iyo mas-uuliyaddii, dalabkaad dalabtay iyo su-aashaada daraaddeed waa lagu tala saaranaya. adiga iyo taagta iyo tamarta ayuu ilaahay kugu odhanaya. ana adiga ayaa doontae awooddaada iyo taagtaada iyo tamartaada kaga bax culayskeeda iyo waajibaadkeeda iyo mas-uuliyaddeeda. bimacnaa laa yuciinuka allaahu calayha, ilaahay subxana wa tacaala kugu kaalmayn maayo. xagga ilaahay kaalmo ka sugi maysa mar haddaa adigu doonatay adoo culayskeeda og. wain uutiitaha min gayri mas'alatin ucinta calayha, haddii lagula soo doonto oo lagu garto oo aada leedahay sifaadkii iyo tilmaamihii aada waajibkeeda ku gudan karaysay, oo marka lagu gartayna aada aqbasho, adiga oo aaminka ah naftaadu inay ku fitnowdo oo ay kuula badan tahay inaanay diintaada kaa fitnaynahayn. xaaladda noocaasiya ilaahay baa subxana wa tacaala kugu kaalmaynaya, ee adigumaa doonan waa lagula soo doonta. qaarinuu bayna hada alxadiid wa bayna alwaaqic ayuha almuslimuun. isgarab dhiga xadiidka iyo waaqica. dadka madaxtinimada u orda heerkay doonaysaba ha gaadhsiisnaatee, inta badan waa kuwa ku fashilmaya inu arkayno, ee wax allaaliya wixii ay ballan qaadeen badankoodii aan la arkahayn, oo iyaga laftoodu meel dhexe ay ka soo noqonayaan, leannahu may helin ilaahay kaalmadiisi. cawnullaahi baa ka maqan, ilaahay kaalmadiisi. qof ilaahay kaalmadiisi ka maqan tahayna taayir rogi maayo, geedkaana gaari maayo. saxaabiga la dha abu muusa alashcari isna wuxuu hi: aqbaltu ila nabiyi sala allahu alayh wasalam wa macii rajulaani min alashcariyiin. nebiga ayaanu imi iyadoo ay la socdaan
لبنين وكميدا قبيلة يد أشعريين تلدادو أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي مدينة عميدك بيوغا السعودي منا دينا عبيدح فكلاهما سال لبدو دبر رسولك عليه الصلاة والسلام أي ويديستين إنه مدح كدغو وميل وأمير وقدغو مقعابه فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس أبو موسى وكن يديسي عبد الله بن قيس ومقعيسي وما حيوحني وحنا أدونا كل صعتاوي نمان كان مدحتني مدون كي أدلا صعته أدونا متناد كل صعتا قال أبو موسى رضي الله عنه قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وحن كدارتي الله حق كل صدره وحاي دونيين الدمع عودي قرشود وها أنيقا إيمي شيقين يقال ما أنا التشن معنى يدو حويانو كل مسعون وما شعرت أنهما يطلبان العمل من أوقين من الدرين سنين إني من كاسي مدحتني مدمعو كايو ومدحتني ما يدونيين فقال النبي عليه الصلاة والسلام رسولك وحيري لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده النقو عمل لدى مسؤولياتك الرماها إلهي سبحانه وتعالى وتلدو ذا نودي بي ومدي من أمنا مقعونه قف صوت دون تيسوه ويري هلا يقدق مدح صابتوا محي ولا من حرص عليه سروات كلا كتمي يمد كد دالي تونا مر هدو كد داليو حالة كوبان حق الدماء كشاقي دون موياني waxay u badan tahay inuu lafihiisa madaxtinimada u doonayo madaxtinimad jacayl inuu hayo oo culeyskeeda iyo halisteeda iyo mas'uuliyadeeda aanu garanayn ama uu garanayo ee uu ilowsiinayo isdhaafinayo waxay u badan tahay inuu madaxtinimada magaceeda iyo maamuuskeeda iyo maalka iyo xoolaha lagu helo mid raadsanayo baadidoon ugu jira inuu yahay كهدي لو ديبنا وحد يعمل مصالح دي الدنيه جود الدينات هي الدنيا بقى ومضوا هاي الهيت ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن لبادي إنن صدح نبهين أبو موسى يا لبنين وكل سكريريين لبادي رسولك أفكا ولب حيري مدحنا قدك رسولك عليه الصلاة والسلام وحبه مديبين وأنا الشاقي صوابته وسواش وذا أوجد بوحبه قديب واي أبو موسى يقول الله هاي قال له أنا كل مسعون من الدونة هين يقول الدونة ينما أوجين أي رسولك عليه الصلاة والسلام مقعابي أرضوا يمنتك وكوري يمنتك كونفرات بودري معاذ بن جبل أو يمنتك وقوي ودري أي رسولك عليه الصلاة والسلام كذب الجاي حديث كان مسلم بكوريي بخاري بكوريي صحيح اسم وتلمام يا رسولك عليه الصلاة والسلام مسؤولية كسارا ومدى مصالح ده عدة مسؤول كان نقون إيسا عدة الرماية ده معمول إيسا سنة محمد عليه الصلاة والسلام وقصوا بحي وقف إنه الإسلامية هاي لفيه سمى دحتني مود دونيا يا وحياباك لا كفر عما إن رسولك عليه الصلاة والسلام أبي بكريم وحا مسلم وكوري الصحيح يسو نبي يقول الله هذا الصحابي اللي ورنشري أبو ذر والصحابي هذا فضل بدن والنبي عليه الصلاة والسلام ويريه ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من ذي لهجة من أبي ذر صمدوا ما يحرين دولكنا مقادن ننكرهم بدن صحابي قال هذا أبو ذر كان زاهدا في الدنيا لأن الدنيا ده وقا ساهد سنبوها حتى مذهب قارو صحابة كالآن اللي هو داقين بقبل وأورانا هي قفك حولها يما الأدوية قبي قوضا بوحو كهي سنكرا انت ومركا استعمال كودا وبهي هذا بقول $1 هاي صو وما انت طبعا يكوكو في لين سقاش الكلام بحسا واجب كوكوا هل كاسو أدوية كتاقنا markii arinta noocaasiya lagala hadlay
وكي مدينة بكبحي وميل ربذا لا يراهدو عدلا وعيل بيودو كيالو هل كاسو اسكتغو اسكدغي ابو ذر رسولك عليه الصلاه والسلام ويمي قال قلت يا رسول الله الا تستعملني وحن رسولك الهي مدحتنimada iyo maamulada ilaahay uu ku dhiibay miyaanad waxba iga dhiibayno meel miyaanad madax iga dhigahayn fadaraba biyadi ala mankibi rasuulku alayhi salatu wasalaam garabku iga dhirbaaxay buuli ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة أبو ذر ضعيف باطح حق إيمانك ضعيف كتاهي معها حق أقونت ضعيف كتاهي معها حق حوق هي ودة شريد ضعيف كتاهي معها انت منا ضعيف كما هين أبو ذر لكن أبو ذر سين الشاقني كان زاهدا في الدنيا وحامداني أدو يد قيمة الله هين قفاني أدو يد قيمة الله هيننا arrimaha adduunyo ee dadka masaalixdooda ay ku xidhan tahay xil weyn iska saari maayo ka shaqeyn maayo qiimo lama laha isaga dhakhtar dadka in loo sameeyo iyo guryaha ay galaan iyo meelo ay biyo ka cabaan iyo waxaasi waa adduunyo isaga qiimo lama laha marka haddii mas-uul looga dhigo sidaana isaga qiimo ula lahayn ayuunbuu arkayaa inaanay dadkana wax badan u tarahayn walihaada ma qabanayo مصالح دي الدنيا هيد قفك مدحدي إنه قبته وإنها مركوات أدو ضعيف باتها النبي وإنها أمانة يدنا وأمانة وإنها يوم القيامة خزي والندامة مالك قيامنا وهو يمرقه إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها قف حق يدك صباحي واجب كسار مركو ومضى مدح بالنقضة قلتي واجب كسارن هو إننا واجب كالدين دوي نكرر هذا ولا نزال نكرره ونكون على علينا سقف كستوى مسؤولي ومقله وهي ما أنت تتكين بدل ما نكون وحق الشيء هدي أي دتك مسؤول ونقدان إيا مضح إلى دتك الدنيا دود المسؤول كيهين ودتك الدين تودا وناقا إلا فرع حمانتا إلا قرر دينتا إلا برا منكراتك إلا لدقا الله goobaha diinta in kor loo qaado maanta yaa lagu halaya goobaha diinta iskuulka iyo madrasada isgarab dhig ayuhuma awla koodeeba mudan mid adduunya lagu baranaya midna diin baa lagu baranaya wala shakka diintu inay tahay waxaan la garab dhigi karin adduunyada dadka madaxda ah waxay aaminsan yihiin in iskuulka mas'uuliyadda ay ka saaran tahay dhismihiisa mushaarka macallimiintiisa hagaajintiisa laakiin ayna الاماكن التي يتعلم فيها دين الله iyaga mas'uuliyadooda maaha waa shaqada wadaadada weey iyagu waxa u raadiyaan oo hadhisaan iyagu mushaar siiyaan waliba aan ku eed lahayn wadana la oranayo dadkii bay lacag ka qaadayaan wadam maxay sameeyaan dadka wuxuu dhigistooda meel la iska deyn maxaa la sameyn doonaa ila cidii waajibkeeda ay ahayd waajibka way dayaceen waabay dadaaleen taagta in loo mahadnaqo la dhiirigeliyo ayay ahayd waajib madaxda saaran oo iyagu ay qabteen weeye iyo faral la oran karo way ka rideen marka qof xaqeeda ku qumay oo ku kacay waajibkii ka saarana gutay mooyaane qof kasto kale madax noqda waxa sugaya hoog iyo muruga sugaysa buu nabiga kaleey salaatu wasalaam mas'alada ku saabsan talab al-imaara qofku madaxtinimo inuu raadiyo العلم ورحمة الله عليهم حكم كايلة هاي واسكو خلافا قاركود واحد هذا هو حاران حديث تماري دليشدين كوا كلنا واحد هذا هو جاي سوا بنانت هاي لكن قف كيبي لي ويو بنانت يجي لفتود مقف والبا مايا وقف كله أودي أمانة دي أوباهنت إسلام مركا قصد كيس يا مراد كيس سنوية هاي مركو دورنا أيوه إنه وح إصلاحيو هجاتيو ودتك دينتو دي أديو بكر وقاضو إسلام مركا يسقون إسقيم يوم إنسان كيس صاري وأي أولب ضتي ويران مركو إسقيم إن أنا دينتي سكفتنا هين آخر دي سنة أنا فسهادين هين أو إسقع بي كرفتن كده هي الشركة دي اللي بعتها أي لا هاي كاس كارليا علماء قاركون التفصيل بيجليين وحالتنا وبنانت أي حالتنا ما بنانا بيرادين
culimada markaa tafsiilka gelisay xukunka masalada kala qaaday waxay daliishadeen biidn illahi subxana wa tacaala khudbadda labaad baynu ku sheegi aqulu qawlii hada waastaqfir allah lii walakum alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiin wla cudwana ila clى الظaalimiin wslى اllahu عlى nabiyina muxamed wعlى alihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu ayuha almuslimuuna cibaad allah ilahay kitaabkiisa wuxuu ku yihi isagoo ka warramaya nabiy llahi yuusuf ijcalnii calى khaza'in اlard inii xafiidu caliim kaydka raashinka madax iga dhig buu hi isagoo la hadlaya ninkii meeshaa madaxda ka ahaa waayo laba sifaan leeyahay oo waajibka aan ku gudan karo mid waa aqoon midna waa ammaano wixii lay dhiibay aan ku xifdin karo oo aan ku ilaalin karo culimada qaar waxay u daliishadeen aayaddaas qofku inuu madaxtinimo dalbi karo odhan karo meesha madaxa layga dhigo waxaa la mida xadiidka uu abu daawuud wariyey min xadiidi cuثmaan bni abi lcaas annahu qaala linabiyi ijcalnii imaama qowmi rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yimi markaasuu yihi waxaad iga dhigtaa tolkay imaam iga dhig qaala anta imaamuhum rasuulku wuxu uhi adigaa imaamu ah imaam baan kaaga dhigay wاqtadi biadcaafihi markaad tukinaysana kooda u taagta darani sida uu xamili karo u tuki oo taagtaada tolka ha ugu talinin iyo kuwa xoogga leh taagtooda ha ugu talinin ka u taagta daran qaabka danta uu xamili karo ugu tali xadiidkaana culimaa masalada u daliishaday qowlka saxdii haddaba wuxuu yahay ila nebigu laa tasal ilimaara buu leeyahy madaxtinimaha dalbin waa diiday arrintaasi in la dalbo xadiida kalena waad aragta waanad maqashay labadan daliil iyo kuwa lamidkaa iyo adilada see laysu waafajinaya waxaa laysu waafajinaya in la dhaha asalku waxa weeye qofku inaanu madaxtinimo dalbin ha la yidhaahdo waa xaaraan ama waa makruuh tii la yidhaahdaba waayo culayska iyo dhibaatada ay leedahay awgeed iyo raadinta uu raadinayo baadidoonka ugu jiro iyo dadaalka uu ku dadaalayo calaamad u ah inaanu garanayn halisnimadeeda iyo inuu lafihiisa u doonayo ee aanu ahayn mid danta ummadda uu doonayo madax inuu noqdo ka talinaya asalku waa sidaa laakiin xaalado gaaraa jira oo adiladan lagu fasiray qofku madaxtinimada uu dalbi karo xaaladahaasi waa kuwe hadduu og yahay mansibka iyo madaxtinimadaasi aqoontay u baahantay isaga mooyaane cid kale inaanay garanahayn isla markaa naftiisana uu u badinayo inay waajibkaa gudan karto xaqeedana ay ka soo bixi karto diintana aanay kaga fitnoobahayn si ummadda maslaxad ila mid jaahila haddii loo dhiibo arrintaasi way dayacmaysaa si aanay u dayacmin xaaladaasoo kaleu dalbi kara bay dheh markuu isagu sifaadkii leeyahay kelidii ama cid kaloo hawshaa u diyaaro ka soo baxaysa aanay jirin iimaankiisa iyo dayaanadiisa markuu qiimeeyena uu isleeyahay alayla malaa diintaadu kaaga dayacmi mayso oo raasamaalkaaga ku waayi maysa markaasi niyadiisuna ay tahay madaxtinimada u doonaya an yuslixa umuura annaas addiiniya waddunyawiya arrimaha dadka diineed iyo adduunya inuu hagaajiyo waina yuujadu hada alyowm qala maa yuujad milu hada kaasoo kale in la hela aad ba u yar tahay aayaddan ilahay nebi yuusuf uu ka sheegayna taasay ku fasireen culimadu inii xafiidun caliim waa kaa yidhi macanaa cid kaleoo aqoonteeda leh ama ammaanadeeda leh ayaan jirin marka aniguunbaa ummadda u ilaalin kara kaydka raashinka si ay abaaraha ugaga baxaan iyo sanadada adag saxaabigana culimadu waxay idhahdeen ilaa cabdiraxmaan ibnu samuraba nebigu waa kii ku yihi madaxtinimaha dalbine isaga muxuu markiiba ugu yihi isagoo yidhi imaam iga dhig qoomkayga si aan u tukiyo adaa imaam ah muxuu nebigu markiiba ugu yihi wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam markiiba ugu yidhi lanna isaga ayaa qofka keliya ee u mudnaa inuu dadkaasi imaam u noqdo oo imaamka sifaat baa looga baahan yahy saa awgeed buu nebigu calayhi salatu wasalaam ugu diray waxaa kaloo ka muuqatay inaanay arrintani madaxtinimo ku dadaal iyo raadinteedaana ka ahayn ee ay ka tahay inuu ummadda si saxa u tukiyo isla markaa ilaahay subxana wa tacaala diintiisana uu baro oo u sheego marka xaaladdaa kooban ee dadka maanta laga heli karaaba ay yar yihiin ayay culimada ka soo reebeen inta kale asal waxa u ah madaxtinimo in la raadsadaa inay tahay mid nebigu calayhi salaatu wasalaam uu diiday culimada qaarna ay yidhahdeen waa xaaraan qaarna ay yidhaahdeen waa shay makruuha
بمعنى هذا لو قف عنيا ويتاي قفك مسلم كاي إنه كفوا هذا إلهي بين سبحانه وتعالى ويدي سنين نوافتشيو سيدا وتشعل هاي هي سيدا مثل حد إن يوناجين وكتشرا الدنيا آخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.